madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta caalamka kula hadlayay magaalada Dubai ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa ka warbixiyay xiriirka soo jireen ee taariikhiga u dhaxeeya Puntland iyo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Soomaalida. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka banaan Puntland iyo waliba Soomaaliya. waxaana uu sheegay in cilaaqaadka labada dawladood ay xurgufisoo kala dhex gashay isla markaana loo baahan yahay sidii loo xalin lahaa. Puntland as a state in Somalia. The state of Puntland lies at the northeastern part of Somalia. It occupies 1/3 of the Somali territory and comprises 1/4 of the Somali population. It's strategically located and is the only state that borders both the Red Sea and the Indian Ocean. It's also the gateway. Somalia is a federal government. Why do we have chosen, and it's important to understand the concept of federalism in Somalia? The idea of federalism was to establish a state government is responsible for certain government functions whilst ensuring federal government that upholds the nation's unity. Somalia's collapse of 1991 was the result of centralized power and the Mogadishu city state. Somalia is not Mogadishu and Mogadishu is not Somalia. madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta caalamka la hadlayay ayaa soo jeediyay khudbada dheer markii uu soo gabagaboobay shirka jaraa'id oo qabtay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay telefishinka Home Cable TV ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa uu ku marayay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. waxaan maanta halkaan u imid inaan adres gareeyo miidiyaha UAE aan kala hadlo dhowr waxyaabood. midda horeysa waxa weeye cilaaqaadka labadooda ka dhexeeya inuu yahay cilaaqaad ay laga maarmaanta in la ilaaliyo cilaaqaad aan isleeyahay waxaa ku yimid wax yar oo turaan laakiin aan rajeynayno in uu dib loo saxo dib loo hagaajiyo sababtoo ah labada wadan ma kala maarmaan. dadka UAE waa dadka Soomaaliya, dadka Soomaaliya waa dadka UAE, sababtoo ah way isku xirannahay, ganacsi naga dhexeeya. dad badan oo Soomaaliya ku nool halkan ka shaqeysta, dad badan baa ganacsi ku leh. labada wadan waxaa jira laba wadan oo waad garan kartaa waqtigii Sheekh Zayed bin Sudan Al Nahyan uu dowladda madaxweynaha ka ahaa bilowgii iyo Soomaaliya xiriir ka dhexeeyay dadku si isu jeclaayeen marna marka in la dhumiyo sabab la'aan iyadoo wax reason oo sax aysan jirin in la dhumiyo ay sax maaha. waxaan rajaynaynaa marka cilaaqaadka labada wadan inuu hagaago waan rajaynaya inuu hagaago cilaaqaad labadooda oo kasta ahi way iska dhacda marka qaarkood inay ku timaado xogaa yar turaan sheegay laakiin waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay ka baxdo hagaagto. sidoo kale dee in wixii maalgashi dalka ah dadka dhan bay dan u tahay wadanka la maalgeliyo ama ha ahaada UAE ama ha ahaada wadan kale oo iyo kambaniyo kale oo wadamo kale ka yimaadahay dalkeennii khayraadkiisana ka faa'iidaysano inay wadanka la maalgeliyo in shaqo loo abuuro dhalinyarada si aysan ugu biiro shabaab iyo daacish iyo mucadbadeed iyo tahriib. waxaa la rabaa in aanu abuurno jawi wanaagsan oo maalgashi dalkeena abuurana laga rabaa. waa wax waajib ay leenahay dowlad goboleedyada, waa waajib ay leedahay dowladda federaalka laftigeeda inay doorkeeda ka qaadato inay fududayso in wadanka la maalgeliyo oo umada ku shido. waxaan ogahay madaxda dalka Soomaaliya laftigooda in fikra ay dala qabaan aan ku kala fikir duwanayn markay timaado maalgashiga wadanka gudihiisa la maalgelinayo. sababtoo ah hadda waa joogaa kambaniyo wadanka maamulo oo ama ha noqdo dekedaha Soomaaliya qaar badan ka mid ah ama ha noqdo wadamo kale oo maalgelin kale dalka u jooga. sababtoo ah wadan waxaan nahay khayraad badan leh, wadan waxaan nahay yani taajira marka la eego dhanka khayraadka dabiiciga. laakiin waxaan nahay waxaa weeye dhaqaale aan kusoo saaran lahayn iyo teknolojiyadii iyo maxaa la yidhaahdaa aqoontii. waxaan uga baahannahay kambaniyaasha dawladda intaa wax kale uga baahannahay ma jiro. khayraadka waa haysanaa, wadanku waa barwaaqo, laakiin waxaan u baahannahay dhaqaalahooda iyo teknolojiyadooda inaan ka faa'iidaysano. iyana waa naga faa'iidaysanayaan dabcan. marka waa xiriir iyo kala faa'iidaysi labada dhinac maaha. mid qolo kaliya dan ku qabto maaha. imaaraad iyo qolo kale dan gaara kuma qabto, Soomaaliya kaliya dan gaara kuma qabtee
ولا كلا فائدة سنية ولا ولا شغالين إن شاء الله ساس ويا وحنا وحكوا لنا أنو عون المتجر وحنا رجينا علاقاتكم إنه هجاجو وأنا رجينا ورجع الدول الصومال رفتقوا وراح يدوني أرجع علي هاي علاقاتكم هجاجو أنا نوعت على سويت وحنا إن شوي حتى أبو مي وأنصحها هاي نبيش وكبحهم دلكنا وهجاجو حركنا هجاجو الناس الدول الصومال سوق قارين إمارات سوق قارين أنت أمي معه عبدي ناصر خالد سعيد وركه هون كيبل تي في مقالة دبي.